بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kusoo guda jirnay barnaamijkeeni buug akhri caawana waxaa idin soo jeedin doona anigoo ciid cabdi ah waxaad kala socotaan qaas academy caawa waxaan rabnaa inaan kusoo qaadano barnaamijkeena buug akhri kitaabka lagu magacaabo ad-durur cala al-marafi at-tawasul al-ijtimaaciya kitaabkan wuxuu soo qaadanayaa qawaacid aad u tiro badan soo qaadanaya oo noloshaada wax ka bedelayso marka qaacidooyinkaas ayaan dhowr xabba ka soo qaatay caawa haddii noo suura gashan insha Allah waa sii wadayna inaan qaacidooyin kale ka soo qaadano qaacidada koowaad ee anagu aan soo qaadanay asagu waxa weeyaan qaacidada labaad ay u tahay nabigeena kalimaadka laga soo guuriyay ee lagu magacaabo jawaamicul kalima oo ah kelimo wax badan koobsanayso nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam waliyati ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi qofka dadka ha oo la imaado waxa uu jecel yahay in asaga loola imaado ay caamilu naas dad kula macaamil ama kula dhaqan kama tuhibbu sida aad jeceshahay in yacaamiluka inay kula dhaqmaan qaacidada labaad anagu soo qaadanay kitaabka la soo baxnay xawayaan 5 daqiiqo waxa aad ku sameyn karto weeyaan waxba ku akhrin kartaa oo ku weysan kartaa laba ragcadood ku tukan kartaa ilaahaad ku bari kartaa mid qodobka xige aan ka soo qaadanay kitaabka waxa kamid ah waxa weeyaan caadooyin yar yar oo aad ka faa'iideyso faa'iido aad u weyn ama abaalmarin aad u weyn aad ka faa'iideyso tusaale ahaan inaad ka caada dhigato inaad quraanka maalin kasta inaad in yar ka akhriso kadibna aad ku tadabburto oo aad tadabbur ku sameysid oo aad ku celiso inaad akhriso 10 safxadood maalin kasta waxaad ka helaysaa kulli ajir 300 oo kala safxa bishiina waxay noqonaysaa 3600 macnaha aad u badanaysaa marka waxaad kala tukan kartaa salaatu duha ragcatayn yawmiya maalin kasto wuxuu ku leeyahay 720 ragca ay noqonaysaa sanadkii nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wa inna ahabbu al-a'mal a'mashin kan loogu kalgacayl badan yahay ila ilaahay xaqiis adwumaha waa mid joogtada ah oo amaasha la joogteeyay weeyaan mid loogu kalgacayl badan yahay waa in qal haba yaraatee qodobka xige aan ka soo qaadanay kitaabka waxa weeyaan as-saxaabatu yuhibbuna al-ansar saxaabadu way jeclaayeen ansaarta hatta anoo maxabu bihubbati kulli man ahabbahu wa nasiru illa ay ka jeclaadeen cid kasto nabiga jecel way jeclaadeen cid kasto u gargaartayna way jeclaadeen nabiga cid kasto oo u gargaartay way jeclaadeen cid kasto karaameysana way karaameeyeen qodobka xige ee aan soo qaadanay waxa weeyaan inaad sujuud ku dheeraatid wuxuu yiri jirooyin badan oo uu sameeyay kadib inuu hamuumki iyo dhibaatada ku haysatay inuu qaado wax ka degdeg badan oo ka qaadi og malaha sujuud oo la dheereeyo ilaahay wuxuu yiri wala qad na'lamu wa ogna anaka yadiqu sadrika bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin marka aad ba u mahadsantihiin intaas ma kitaabka soo qaatay kitaabka aad u dheer yahay waxaan soo dhigaynaa insha Allah groupka qof walba ha soo fiiriyo anagu barnaamijkan danta aan ka leenahay waxa weeyaan inaan bal kitaab kalba aan toosh ku ifino dadkuna ay soo akhristaan marka waa mahadsantihiin